kulan ciyaareedkan si weyn ayaa natiijadiisa loo sugayay waxaana ku loolamayay kooxda kubadda cagta Dekada oo labadii sano la soo dhaafay ku guuleysanaysay horyaalka Somali Premier League iyo xidigaha ciidanka xoogga dalka ee Horseed oo iyagana muddo dheer kadib raadinaya hanashada horyaalka. Taageerayaal aad u badan ayaa aad u soo camiray garoonka iyagoo kaalin wanaagsan ka qaatay qurxinta xidigaha labada koox, balse hoggaanka daqiiqadii ugu horeeyay ciyaarta waxaa la wareegay wiilasha Horseed waxaana gool cajiib ah oo si weyn u soo jiitay dadweynihii ku sugnaa garoonka u dhaliyay kooxda Horseed laacibka hore ee naadiga gaadiidka Ibrahim Cabdi Maxamed Budka. Inta aan la kala aadin qaybta koowaad ee nasiinada, kooxda horyaalka Somali Premier League xafidanaysa labadii fasal ciyaareed ee la soo dhaafay ee Dekada ayaa iyagana dhaliyay gool la mid ah kii laga dhaliyay waxaana kubad uu caawintiisa lahaa Maxamed Nuur Cabdi gool u bedelay kabtan Cabaas Amiin Maxamed. garoonka ayaa si weyn isku bedelay waxaana loo sacbiyay Ibrahim Cabdi Maxamed iyo Cabaas Amiin Maxamed oo garoonka ka dhaliyay laba gool oo aad u qurux badan kana mid ah goolasha ugu wanaagsan ee Allah laga dhaliyay horyaalka Somali Premier League. Tababarayaasha labada koox ee kala Yusuf Al-Nur Cali oo hogaamiye kooxda Dekada iyo Cabdiweli Maxamed Maxmuud Cabdijoon ayaa si wadajir ah kulanka kadib inoogu waramay iyagoo u mahad celiyay ciyaartoydooda shaqada wanaagsan ay soo bandhigeen welina uu socdo loolanka hanashada horyaalka Somali Premier League. kulankan wuxuu ahaa kulan labada kooxood ee hoggaanka isku haystay ciyaarayeen runtii first half-kii waxaana looga hormaray gool kadib waa bareejaynay fursado badan waa helnay waa ka faa'iideyn weynay waa ciyaarnay marka bareejadaba waa mid wanaagsan haddii aysan noqon weysi inaan guuleysano balambiigeen wuxuu ahaa inaan barbare helno oo aan hoggaanka marnaba aan nalaga qaban. waxaan sugayna guul runtiina ma aragtay wali horyaalka wuxuu noqday macnaha haddana muxuu ahaa rajo kale shaqo kale aan sugayso insha Allah marka waa ku gudbi doonaa haddii ilaahay waxaana wax qoranay ahayn ilaahana ma hadda iskale intaan ma aragtay barbaraha sii marka waa ku faraxsanahay inay kooxda ma aragtay shaqo fiican ay qabatay. Abdullahi Cali Bile iyo Xasan Afgooye oo iminka u ciyaara naadiga Horseed ayaa labadii fasal ciyaareed la soo dhaafay door wacan ka ciyaaray hanashada kooxda Dekada horyaalka Somali Premier League, balse iminka waxay si wadajir uga qayb qaadanayaan dadaalka iyo horumarka kooxda ciidanka xoogga dalka. waxaana ciyaarta kadib inoo waramay laacib Xasan Afgooye isagoo sheegay inuu ku faraxsan yahay ciyaarta quruxda badan ee labada koox soo bandhigeen. ciyaar adag ahayd waa labada koox saa og tahay waa laba koox tartamayso horyaalka waa loolanka laba koox isla hayso waay marka ciyaartuna waa ciyaar oo dadweynaha aad u xiiseynay ahayd sababtoo waa dareemi kartaa laba team oo hoggaanka isla haysto marka ciyaaraan waa ciyaar ka duwan ciyaaraha kale oo kooxaha kale marka la ciyaarayo. Axmed Nuur Sayga Ruushka oo ka tirsanaa ciyaartoydii hore ee kooxda LLP Cheyo ayaa ka mid ahaa dadkii ka soo qayb galay daawashada kulanka kooxaha Dekada iyo Horseed. Sayga Ruushka ayaa sheegay inuu soo xasuustay waayo maadaama garoonka ay aad u soo camireen taageerayaal aad u tiro badan. Sports Soomaaliya hadda waa hormaray aad iyo aad u hormaray waxa inuu hormaray cadeynteeda ay tahay waagi hore la ciyaari jiray waxaan ciyaari jirnay dhowr kooxood ciyaari jirtay 8 kooxood hoos aan u dhacayn oo mar walba kor taagan maanta ciyaarihii waxay noqdeen Serie C, Serie B, Serie D, Serie A loo tartamaan kaga hadla kooxahana koox aad u fara badan waaye. La taliyaha maamulka ciyaaraha gobolka Banaadir Cabduqaadir Muxudiin Xaaji Dacar ayaa u mahad celiyay shacabka gobolka Banaadir ee si wanaagsan u qurxiyay kulankii u dhaxeeyay kooxaha Dekada iyo Horseed. Gaar aad u qurux badan dhacday oo maanta dadka dhan waxay siinayeen dad aad u fara badan waa soo baxeen labada kooxood laba kooxood isku barbar dhigi ahaayeen haddii dhibcaha loo fiirsho haddii ciyaarta loo fiirsho sida dadweynaha filayeen oo ku dhamaatay barbar dhac.